السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتين والله على channelkeena ku xidhan Maryam Maxamed mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada. Saxaabay waxaan rabaa wax yar inaan su'aal dad badan soo weydiiyeen dad badan ay ku wareersan yihiin inaan wax yar waxaan rabaa aan isku day inaan ka jawaabo su'aashaas ay tahay dad fara badan oo markii imaadaan wadankan Mareykanka runtii waxay isweydiiyaan su'aashii aniga aan isweydiin jiray markii aan Mareykan imaaday su'aashaas ahayd haddaan iskuul aaday maxaan bartaa ma waxaan bartaa dadka badankooda waxay isku hayaan dhalinyarada ma waxaan bartaa nursing maan bartaa caafimaad wax ku saabsan miyaan bartaa mise waxaan bartaa computer science aan bartaa so computer science marka laga hadlayo ama IT-ga dhinacaas laga hadlayo haddii tahay xitaa networking or whatever other muxuu ahaa cloud la baranayo marka cloud engineering la baranayo hadda ay hayaan Amazon oo Google cloud engineering la baranayo waxyaalahaas oo dhan waa jiraan marka dadka badankooda waxay iska taamur dhinacani computerka miya aadaa mise dhinacani waxaan aadaa ma aragtay caafimaadka dhinaciisa aadaa so aniga markaan imaanay dabcan way jirtay arrintan aad baan uga fikiray aad aan runtii uga fikiray sababta koowaadna waxay tahay markii aniga aan Kenya joogay waxaan qaatay classyo badan koorsooyin badan oo IT aan qaatay dhowr xabaan qaatay A+ network plus xitaa waxaan noqday dhowr xaba inta koorsooyin badan intaan qaatay sanad soconaa camal waxaan noqday MCSA or MCSA waxaa la yiraahdaa Microsoft Certified System Administrator la yiraahdaa administratorkaasi aad dad badan u noqonaysa macnaheedu computer badan baa xukumaysa 2,000 oo computer hal meel ka xukumaysa iyo also waxaa kaloo noqday class sanad kale taadana qaatay waxaan noqday MCSE waxa la yiraahdaa waa Microsoft Certified System Engineering engineering macnaheedu waxa waa networking marka halkaas joogay Kenya kaasan kusoo bartay marka inta maaday run ahaantii dilemma ay ku jira ma fahamtay warniyo waxa aan soo bartay ma sii wada mise ma arkino maxaa kale fiirsaa camal maadaama Mareykan imaada أنا كنت سكورر سن أبتجي محور إلى خراسية عمر دكتور عمر اللي أبتجي ما شاء الله إلى قبتي وإلى فديستي وحيجي هذا نيو محمد وأن كرة اليو ثلاثة أن وإسيار إن سينا يا مرك أنا جو ثلاثة أسنوا ثلاثة ما أعرف إنه ليش يدر أنتي وين كبدأ شو هذا ماشي أنجو الحمد لله أن كو إماضي وثلاثة أسي taladaas oo ahayd muxuu ahaa abta Umar wuxuu ugu yiraahday ila kharasiyo wuxuu ugu yiraahday inuu iska dhaaf waxaan ka hadlays macna IT iyo waxyaalaan iska dhaaf sababtay tahay aan ku sheegay sababta wuxuu yiraahday IT qof walba taa baran karo meel walba taa lagu baran karaa dadka badankooda IT-ga bartana waa dad Hindi oo Hindiya dad Hindiya imaanayaan oo Pakistan iyo adiga South Asian ka dhan ma garanaysaa China iyo baalkii soo marka dadka halkaas ka barnaa qof asoo gurigiisa baadiyo joog internet iyo computer to IT uu baran karaa sidaas daraadeed waxay maadaama ay qofkii waxaas uu bartay qof walba uu baran karo waxay noqonaysaa a very competitive camal noqonaysaa meel ma aragtay shaqada markii la gaaro war isku dagaalaya markii ileen waxaa baranayso indii meeqa bilyan 1.4 bilyan miya ma aqaan 1.6 bilyan miya oo half-kood IT barteen iyo adigoo Mareykan imaaday isa tartamaysan marka iyo China ka sii badan iyo Europe kale iyo Africa kale ka sii badan Africa kale ka sii badan soo marka IT-ga tartan fara badan shaqada lagu jira 200 oo qof macnaheedu shaqooyinka macnaheedu job security-ga ma fiicno tusaale waxaa ka mid ah xitaa والله aad u saxana tusaale waxa kamid ah dadaan ayaan dhaxlaas oo ina maqasheen kala ma aqaanin Google dad badan ay fire gareeyeen 20,000 ma aqaanin qof ay fire gareeyeen Amazon ayagana waa fire gareeyeen Microsoft WhatsApp dad badan ay fasaxeen iska direen muxuu ahaa Facebook ayagana ma aqaanin 16,000 qof ma aqaanin ay direen Twitter hada aragteen 80% qof 80% dadkii ku noolaayeen waa la diray maxay waxay soo baratay oo dhan ba hal cunug yar wuxuu sameeynaa 15 jir ama 18 jir wuxuu sameeynaa application yar sameeynaya dadkii meesh ka shaqeeyay dhahan mar la diray markaas application-kaas ay lan ka filan wax dhan qabanay Soomaaliya apps-kaas wana wax dhan marka aniga ahaan runtii wuxuu yiraahday dad badan kula jirta dad badan baa macni kula waxay sameeyay maalmo beet way isbedelaysaa
IT iyo computer science mar walbeeto waxaa waaye up to date inaad noqotid waaye 6 bilood haddii ay ku muddo waa ku dhamaatay macnihii hoosa kasoo bilaabaysaa had markii aad sii weynaatid oo da aad sii gaartidna dadka IT-ga badankooda lama hire garay content haddaa ka weynto IT aad taqaanid qof ku hire garaynaa malaha waxaa la hire garaynayaa 10 jir 20 jir aan dhahay 20 jir oo fresh man aad hire garaynaysa soo maahan aad hire garayn kartaa maxaa qof maaragtay oo senior u hire garaynaysaa marka sidaas daraadeed wuxuu igu taliyey abtigay muxuu ila fadhiistay wuxuu igu taliyey in aan aado wax caafimaadka ku saabsan markaas aniga waxaan isleeyahay asaga dhakhtar niyo caafimaadku ku riixay dhinaca camal ku riixaya laakiin run ahaantii waa tala aad u fiican ahayd marka wuxuu igu yiraahday marka aniga markaas Soomaaliya ka imaa Soomaaliya Kenya ku soo noqday muran aan meesha gala macna macquul ma aragtiyo sidee wax u wada adiga intaas waxaan soo baranayay intaas waxa aan sameynay ka kacmiya camal ma fahmino marka muran badan kadib oo idul qaato oo idijiyay marka waxa uu yiraahday i aamin kama shalaynaysta I promise you waa ka ballan qaada inaad waliga ka shalayna wallahi xaqiiqdiisa uu yiraahday i aamin aniga i aamin haddii kaleeto waa dhinaca kale oo aadi kartaa waxa ka hesha Allah iskale macnaheedu xumaan ma waxna fiican ka heli kartaa waxna xun waa ka heli kartaa dabcan sama marka wuxuu igu taliyay inaan nursing aado marka nursingkii sidaasaan ku aaday oo macnaheedu doorashadaas aan ku qaatay aniga ahaan abtigay oo iga caawiya xagga wayla fadhiistay ilaa nursingkii bilaawi classida koowaad classida labaad waxaan qaadanay ilaa aan ka graduate gareynaa dhan map uu sameeyay mapkaas aan ku socday wadadeeda alxamdulillah ay fuday oo maaragtay nolosheeda oo niyaga hagaaji nursingka markii aad dhamaysid muxuu ahaa waxaad samayn kartaa boqol waxyaalaha samayn kartaa nursingka maalin walbeetan kusii jiro madaxa ku sii qarxay wallahi waxa aad ka baran kartay nursing waxa samayn kartaa informatics waxa la computer ku shaqeyn kartaa oo maaragtay chief informatic officer aan noqon kartaa daartid computerada dhan oo nursing iyo engineering ma arkino dadka oo IT-ga aad u dhaxayn kartaa u kala turjumaysaa forensic samayn kartaa dadka markii shil dhacaan ama markii ma arkino qof la dilo dadka baaraya noqon kartaa ama government ay u shaqeyn kartaa waxa samayn kartaa legal nurse noqon kartaa dadka ma arkino nursing oo dhakhtarada la shaqeeya noqon kartaa subhanallah waxyaalo far badan ICU ka shaqeyn kartaa of course kuwaas waa la yaqaan dialysis waxa kale ka sii fiicanta waxay tahay nursing waxa samayn kartaa nurse practitioner noqon kartaa dhakhtar caadi waa nurse practitioner aan noqon kartaa clinic furanaysa clinic adiga furanaysa ku madax banaan furanaysa meel ma aragtay pharmacy ma Soomaali pharmacy laakiin clinic aliyada meesha meel furan kartaa dadka arkaysa waxba qoraysa prescription sameynaysa wax walba oo dhakhtar u sameyn kartaa literally wax walba oo dhakhtar sameyn kartaa waa ka sii dalaci kartaa oo waxa sameyn kartaa also DNB hadda waxaan sameynaa aniga Yale University waxaan ku aaday jaamacadda oo ma sha Allah jaamacadda adduunka one of the best universities adduunka Yale University waa mid aad aadayo waa bilaabid insha Allah duuleedo oo aan ka heli doono my DNB Doctor of Nursing Practice practitioner mid keenta ma aqaani saara loo laakiin DNB aan lahaa marka muxuu ahaa mar walba ka sii dalaci kartaa midda kale nursing waxay ku fiican tahay caafimaadka waxay ku fiican yihiin job security weligaa shaqo ma weynaysid dadka badankooda hadda ka shaqeeyaan nursingka oo shaqooyinka sameeyaan waxay ka weyn yihiin waa dad ka weyn 65 hadday retirement noqonayaan marka aniga ahaan haddaan dib u fiiriyo IT iyo computer iyo muxuu ahaa ama caafimaad wax ku saabsan iskuma dhawaxta aniga caafimaadka qaadan lahaa 100% insha Allah